sida la socotaan daadejinta awoodaha kala heerka marka la leeyahay dabcan dastuurka kumeel gaarka hadda aan ku dhaqano ayuu ku qoran yahay asigoo kala heer federaal heer dowlad goboleed iyo heer dowladaha hoose ka gobol banaadir ahaana dabcan waxaan u soconaa waxa ay tahay inaan hoos loo daadejiyo servicekii ay dadweynaha maaragtay ku nool 17 degan ee magaalada Muqdisho in meesha ay joogaan adeega loogu geeyo aysan u baahan inay gobolka u soo aadaan ama xarunta dowladda hoose Muqdisho u soo aadaan horta ujeedada inta ugu weyn taa weeyaan in la daadejiyo servicekii oo waxyaabo badan oo maaragtay dhinaca maamulka ah faa'iido weyn u ah haddii ahaale dhinaca dimuqraadiyadda ay ayagu dadka is doortaan maamulkooda ay u doortaan xor u yihiin qofka ay hoggaanka ka dhiganayaan dabcan taasna waa loo imaan doonaa insha Allah waxa ay aan u joogno ayay maanta ka mid tahay doodahayna iyo maaragtay in leys aragtida leys weydaarsado sidii loo daadejin lahaa awoodihii maraba inaan ku dheeraado guddoomiyaha ayaa maaragtay arrinkaas ka maamul gobol ahaan maaragtay noo sii faahfaahin doona iyo mas-uuliyiinta naga iga dambaysa marka intaas ayaan ku arkay soo dhawaada ka qaybgalayaasha waxaan rajaynayaa inuu kulankan kulan meel dhara noqdo oo aan la kala faa'iideysto oo wax badan oo faa'iido u leh bulshada deegaanada ama degmooyinka ku nool gobolka Banaadir inuu ka soo baxay rajaynaa waan mahadsantiin